bisinkan marka mar waxaa jirta uu xaaraam noqonayo bismillaahi raxmaan raxiim inaad ku dhawaaqdo ay xaaraam noqonayso wuxuu iska leeyahay axkaam fiqhi ah oo mar waxaa jira bisimku uu waajib yahay oo haddii aad ka tegtid lagu ciqaabayo mar waxaa jirta sunno ah oo bismillaahi raxmaan raxiim inaad ku dhawaaqdo ay tahay sunno marna bismillaahi raxmaan raxiim dhawaqiisu wuxuu noqdaa makruuh ama karaahiyo afartaas xugum ayuu qaataa bismillaahi raxmaan raxiim marka uu waajibka yahay oo bismillaahi raxmaan raxiim inaad tiraahid ay waajib kugu noqonayso waa marka salaadda aad tukanaysid salaadda markaad tukanaysid faatixadii bismillaahi raxmaan raxiim haddii aadan ku bilaabin salaaddaadii waxba kama jiraan oo ma ansaxayso oo waxaad la mid tahay qof aan tukan oo kale ayaad la mid tahay walidaalika bisinka xilliga salaadda waa waajib oo haddaad ka tegtid dee salaaddaadiiba ma ansixin salaaddu haddaysan kuu ansixinna waxaad mutaysanaya cuquubada ilaahay subxaanahu wa tacaala marna bismillaahi raxmaan raxiim wuxuu noqdaa xaaraam in lagu dhawaaqo oo marka xaaraamta uu noqonayo waa cinda almuxarami lidaatih shay xaaraam ahoo daatadiisaba la xarimay haddii aad samaynaysid bismillaahi raxmaan raxiim inaad xaaraamtaa ku bilowdo waa xaaraan maxaa yeelay ficil ilaahay uusan raalli ka ahayn iyo waxa aad ku dhawaaqayso isma lahan tusaale ahaan qofkii hadduu qof muslim oo ilaahay dhiiggiisaba uu xarimay uu dilayo bismillaahi raxmaan raxiim inuu ku bilowdo waa xaaraan hadduu waxadayo bismillaahi raxmaan raxiim inuu ku bilowdo tuuganimadii waa xaaraan hadduu khamro cabayo inuu bismillaahi raxmaan raxiim ku bilowdo waa xaaraam wax walbee xaaraama looma adeegsan karo magaca ilaahay wax walba oo la xarimay oo shareecada islaamku xarimtay wasiilal iyo dariico loogama dhigan karo magaca ilaahay xaaraantaas looma adeegsan karo loomana isticmaali karo marna bisinku wuxuu noqdaa karaahiyo oo markuu karaahiyada uu noqonayo waa cinda almakruuh lidaatih shay daatadiisa sharcigu uu karaahiye ka dhigay haddii aad samaynaysid bismillaahi raxmaan raxiim karaahiyada inaad ku bilowdo lama ogola oo bisinku markaa wuxuu noqonaa karaahiyo tusaale ahaan ka nadfi shayb haddii cira ay kaa soo dhalato cirada inaad iska jarjarto ood iska tifto waa karaahiyo lama ogola oo nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuu nahiyo wuu diiday cirada in la tifo ciradii tifiddeedii inaad bismillaahi raxmaan raxiim ku bilowdo waxay noqonaya karaahiyo shaygu hadduu karaahiyo yahana bismillaahi raxmaan raxiim looma adeegsan karo magaca ilaahay oo karaahiyu noqon hadduu shay aad samaynaysid xaaraam yahay magaca ilaahay xaaraamtaas looma adeegsan karo marka axkaamta afarta ah ayuu iska leeyahay bismillaahi raxmaan raxiim laakiin xukumka ibaaxa